السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta iyo jigjiga iyo muuqaalo aad u qurux badan waxaan ku meel aad u qurux badan magaalo aad u qurux badan oo aad u dhisan weeye halkan iminka aan runtii aan marayno waa meel aad u sawaxana waa goolad ay baabuurtu iska kala jiraan waxaad bartaa ka arkaysan iminka taaladii sayidka oo ka dhisan goobtan goolada ah meeshan aad arkaysaan ama gooladan aad arkaysaan dadku aad ayay ugu soo dalxiis tagaan haddii aad gudaha gasho markii waa lagu garanayaa inaanad ahayn reer jigjiga because reer jigjiga maadaama taaladu aad ay ugu indha badatay waa iska dhaafaan runtii dee waa xiise weyn iyaga uma haya laakiinse qofkii meesha gala oo qof dadka dhan ay soo wadeegayaan markiina ay garanayaan inuu yahay qariib marka waxa weeye marka aad gasho meesha haddii dadku soo wada eegaan ha qajilin ama ha la yaabin waxa weeye ogsoonow dadku inay ku dareemeen inaad tahay qariib adna ogsoonow inaad tahay qof qariiba inkastoo magaalada Soomaaliya qofna aanu qariib ku noqonin laakiin sida ay sheegeen markiiba waan dareemay hadaladii ay sheegayeen waan arkay waxaan hore ugu sii soconnay inaanu ka soo istaagno dhinaca kale si aan taalada si qurux badan aanu wada aragno information oo kooban aan runtii idiga soo gudbiyo sababtan muuqaalkan u codeeyay waxa weeye sawaxanka baabuurta ayaa aad ugu badan maadaama meesha tahay goolad ay baabuurtu isku kala qaybiyaan sida aawadeed waxaan jeclaystay inaan codkan dul saaro si aad u fahantaan waxaanu ka hadlayno annaga laftigii waan iska kaftamaynaa waan iska sheekaysanaynaa sidoo kale waxa halka ka hadlaya khadar oo soo eegaya waxaanu mar qura wada eegnay xagga sare u fiirinay taalada oo aad muddo qof caadi inuu saaran yahay maasha Allah sayidka si fiican bad wada taqaanaan wuxuu ahaa gabiya suugaan runtii dadka meeqaamka ugu sareeya ama heerka suugaanta ugu sareysa ayuu kamid ahaa kulay bartan waxa ku qoran quraaradan aad arkaysaan qofkii qoray ama qofkii sameeyay taaladan ee aasaasay waxaana uu ahaa sidagan ka arkaysaan geesi Soomaaliyeed ayuu ahaa gabayadiisa waxaanu ka xasuustaa ama aan ka xasuustaa tii aan ku siin lahaa anigu bilada geesinimo cirka iyo coomaadayaal duulaya cadan ka keeneen cirka iyo dhulka isqabsaday caradaqdoodii adiguba aqlaal leedahay carar maxaa dhaama taasoo macnaheedu inuu ku xasuusan karo anigu inuu fardo ugu babacdigay diyaarado isagoo runtii ahaa nin dagaalyahana geesi Soomaaliyeeda macnaha geesinimadii oo qof ah ayuu ahaa kulleydii waa ka sii soconaynaa hore ayaan uga sii socon doonaa anaga laftigeyga muran dheer ayaa ka dhashay oo aan ku kaftameynay meesha waxaad moodaa quraardu inay jabtay 13 aanu garaweynay wax laga wado iyo hidraayana ma garan karno laakiin waxaan fahansanahay inay tahay bil kamida bilaha marka cidi garanaysa way noo sheegi kartaa inkastoo jeclaan lahaa taan sadarkaysan muran xoogan baa ka dhashay oo ku murmayno Cabdi Maxamed Umar weeye oo uu iga saxsan yahay balse aniga waxa isku qufulay Cabdiraxmaan Maxamed Umar halkan Cabdi Maxamed Umar ka oran lahaa madaxweynihii hore ayuun baan iraadano Cabdiraxmaan Maxamed Umar nag bal waa tan hal iga furfuraba aniga markii dambe isku qoslay sababta ay khalkhalaysana wax kala ma aha quraaradu way jaban tahay sidoo kale dhas badan ayaa quraarada galay sida aawadeed Cabdiraxmaan kaas iyo Maxamuudku way isku dhex muraaqan yihiin marka sida aawadeed maadaama jigjiga soo horeeyay kala garanayana madaxweynaha soo kala horeeyeen taas ayaa u saaciday inuu iga saxsanaado waanu dhaqaaqnay oo waanu iska tagnay muran dheer kadib wadadii ayaan toos ugu qulqulnay xageebaan aadi doonaa bay idila tahay wala saxaabay ila socda oo iga warhaya waxaan maraynaa wax weeye bartamaha magaalada jigjiga sidoo kale imikana waxaan u sii kacnay xagga iyo meherad runtii magac cajiib leh bal magaca cajiibkii muxuu noqon doonaa loo kala bixi maaye bal ha socota hawshu wax yar kadib waxaanu bilownay xan aan idin xamanay idin kan leenay wayna daawanaya wallahi ma maarata kaas mulay kareyna ka kala mushir kareyna intaasna waa iga kaftan shakeer baan iska galnay laakiin dhinacan waxa muuqaal ka duwiyay walaalkan Cabdirasaaq oo isaguna runtii wiil aad u gacan furan muuqaal aad u qurux badan runtii aan ka dareemayo inuu hagar baxay waa ku mahadsan yahay kadib waxa dhacday inaan tii qabsanay maadaama aan doonayna meesha aanu doonayna ku soconno ay aad u yara fogeyd balse kamarada xidmadan dhulka ku qabanayo gabban wada macnaha waan ka jiri kariyay inta laakiin waxa dusayay heerka badownimada dalkayga gaarsiintay inaan muuqaal dubi karin meeshan aad arkaysaan oo meel aad u macnaha u jaan badan
oo baabuurta aad ay u socoto laakiin haddana si kastoo jaam kasta u jiro magaalada nidaam ayay leedahay gaari kasta traafiga ayuu runtii ka amar qaadanaya iskama bixi karo iskama talaabi karo iskama socon karo wax walba nidaam bay leeyihiin meeshan jigjiga waa meel runtii aad soo jiidasho badan waxa ku nool Carab iyo Cajab way ku nool yihiin maadaama dhul Soomaaliyeed ay tahay Soomaalina ay degatay Soomaalina ay leedahay waxa laakiin haddana aan dareemayna ama marka qaar aad arkaysaa meelaha qaar aad ku arkaysaa meelo Itoobiyaanku ay haystaan kale sida Oromada Tigrayga Habashida iyo wixii la halkan aanu nimi ugu dambeyn aanu soo soconay waan soo gaarnay waxa la yiraahdaa maqaaxida ragga waliba waxa la yiraahdaa maqaaxi shaaha ragga ayaa lagu gadaa waa maqaaxi qadiimiya dadkuna aad u wada yaqaanaan cid kastood weydiisana ay ku sheegayso maadaama ay tahay meherad aad u facweyn kuraasta lama kala helo Cabdirasaaq balka wuxuu soo wadaa 2 kursi qaar baa halka ku leeyahay ariga kursiga noo dhiba isaguna haruuskeyga meel looga yeeri garan waayo mar dambe yiri ayo ma ka soo arkan isku arwaan u baahananiyo waa ku fadhiisanayna meeshii kursiga adiga way waan u soo fadhiistay waxaan jeclaysanay meeshu maadaama meel aad u buuq badan tahay rag badan shaah ku cabeeyaan inaan gaariga galno oo codka dadka aan soo yara gaarin laakiinse mid waan maqli weyn anaga laftigeena markaan muuqaalka dib u eegnay sheeka ayaa noo socota laakiin yana maqlaya wallahi ka tahay banala yara dhageysta kan إيران نكرو كريا جرين علم يا ما فاهمين لكن إمكا شاه نكلا يا لا نشوف تمر ما يمكن حتى والله كان خايط وشاب وعمران تي شاه نكتي شاه نرد مجالد واسكو عرفت شاه نكا شاه نكتي شري سمرة شاه نكتي هذه هي شاه نكتي يعني يو أضي وي كوكاتي والله وياوي كذا زي شاه نكتي يا والله ولا شاهين أنا يتبجى ما شاهب لها أنا حفرية مراه بلون بتشوف اسمع برع حفظ برع واحد جرتين مكان شيء كبر شيء كبسة عز برع واحد جرتين دكان كورها كل شيء والله يا ذا تنا إذا كامش تسافو إذا كامش شيء صار تنا الدكان كلا حاجة كمان رسول كان مهوية ذا والله كشاة نينك يشاة إيران وان يابان يعني متى هردي شاة نينك اللي الركبة مسكين ما برد تجيك تقول شاة نينك دون طبعا سندي وصح هذا عن صارنا بتشاستا ونكتب دونا bajaajtii nin baa lahaa ragii lahaa baa bajaaj nooga soo daga maadaama noo favor sameeyeen waan iska kaftamayaa inama wanaagsan bay haayeen oo inamada dhinaca iga xiga kamarada waanu ka ilaalinaa laakiin markii dambe way ogolaadeen waanu ku qaban doonaa waxaan ugu sabiray Nasruddin oo reer Jigjiga oo ah ragga magaalada nagu haya ninka dharka huruuda xiran weeye wada qaamaha shaahiyacab weeye markiiba shaah kadibna Cabdisaaqna uu ka diiday madaxa shaahiyacabka anyway gabalkii baa dhacay meherada ina taa jirtaa la yiri waanu diiday waxaan waa naga daynaan hab meesha hablo qura jooga la yiri run iyo been waxtiinada waa soo xaqiijin kareynay waxaan nimi adigu hotelkii waan soo casho tagnay halkan waxaad arkaysaan la meeshii lacag lagu bixinay weeye waa meel aad loo decoration gareeyo aad loo qurxiyo maasha Allah laga dhigay dageeli awrkii libaaxii shabeelkii waxba halka la soo saaray maroodigii maasha Allah marka in yar baa ka qabtay aad iyo aad baa u mahadsantihiin muuqaalo kale oo ka duwan waan soo wadaa waana arki doontaan muuqaalo kale aad qurux badan waana ku mahadsantihiin dalka muuqaalka soo gaadheen si share gareeya subscribe na la sii dhaca ilaa adiis